habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo idinka imanaysa maqli doontaan idaacadda caawa iyo dunida waxaa ka mid ah musharaxiinta aqalka sare ee ka soo gelaya hirshabeelle oo maanta jeedinayay khudbadahooga. waxaan idinku codsanaa sanatar aqalka sare ahaan ahay haddaan u qalmana iigu celsha haddii awal adi dhibsateen na ummadiinna ay dhibsatee iga reeba. waxaan kale oo aan idiin haynaa barnaamijkii qurbajoogta oo ku saabsan dareenka qurbajoogta ee khilaafka siyaasadeed ee hareeyey dowladda soomaaliya. xalku wuxuu yahay kow in madaxweynaha horta loo arko dee inuu madaxweynihii waddanka weli yahay oo wakhtigaa ka dhammaaday ee gidaar fadhiisada arrintu ma aha. wixii doorashada ka baxsan iyo amnigeeda waa inuu ra'iisul wasaaruhu kala tashadaa. ra'iisul wasaarahana culays badan baa saaran oo iyadoo howlmaalmeedkii uu wado dowladda haddana maganaysa doorashooyinkii ayaa in la qabtay. qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya iyo caalamka ayaad dhegaysan doontaan. marka horese kusoo dhowaada warkii dunida iyo Sahre Cabdi Axmed. xogayaha arrimaha dibadda dalka Mareykanka Antony Blinken ayaa lagu wadaa inuu maanta ka hor markhaati kaco oo uu ka caddeeyo guddiga koongareeska hortiisa ee baaraya sida milatariga Mareykanku ay uga soo baxeen dalka Afghanistan kadib muddo 20 sano ah oo waddankaasi ay ciidamadu ku sugnaayeen ayadoo ay ahayd taariikhda wakhtigii ugu dheeraa oo ciidamo Mareykan ah ay joogaan waddan bannaanka ah. xildhibaanada xisbiga jamhuuriga ee mucaaradka iyo qaar ka mid ah saaxiibada dimuqraadiga ee madaxweyne Joe Biden ayaa waxa ay weerareen sida uu u maareeyay bixitaanka ciidamada Mareykanka iyo muwaadiniinta Mareykanka iyo kumanaanka reer Afghanistan ee la shaqeynaya ciidamada Mareykanka sida looga soo daadgurayay dalkaasi intii ay socotay kasoo bixitaankii ciidamada Mareykanka ee dalkaasi Afghanistan. dhaleeceyntaasi ayaa si gaara diiradda loogu saaray markii 13 xubnood oo ka tirsan ciidamada Mareykanka ay ku dhinteen weerar ismiidaamin ah oo ka dhacay garoonka diyaaradaha ee Kaabul maalmihii lasoo dhaafay ee bixitaankaasi ciidamada Mareykanka. kooxda islaamiyiinta Khorasan ee ku sugan Afghanistan kana tirsan kooxda ka howlgasha bariga dhexe ee argagixisada ayaa sheegatay mas'uuliyadda weerarkaasi inay lahaayeen. Blinken ayaa waxa uu ku markhaati furayaa Isniinta maanta golaha hortooda gaar ahaan guddiga arrimaha dibadda ee golaha arrimahaasi sida u dhaceen waxaana talaadada soo socoto maalinta berrito ah uu ka soo hormuuqan doona guddiga xiriirka dibadda ee sanadka ee dalka Mareykanka. ra-iisul wasaaraha Israa'iil Naftali Bennett ayaa waxa uu la kulmay madaxweynaha Masar Cabdel Fattah al-Sisi Isniinta maanta waxayna ka wada hadleen xiriirka Israa'iil iyo Falastiin iyo sidoo kale arrimaha laba geesoodka ee labadaasi dhinac. waxa uu noqonayaa socdaalkiisii ugu horreeyay oo rasmi ah uu ku tagayo dalkaasi Masar. Bennett oo ah madaxa xisbiga midigta fog ee xilka qabtay bishii Juun ayaa Sisi uu ku casuumay inuu booqdo goobihii hore waxaana lagu wadaa in labadooduba ay ku kulmaan xeebta badda cas ee magaalada Sharm el-Sheikh oo ku taalla cirifka koonfureed ee gacanka Siinaa ee dalka Masar. wadahadaladaasi ayaa la filayaa in looga hadlo dariiqooyinka iyo dadaalada dib loogu soo nooleyn karo geedi socodka nabadda ee u dhaxaysa Israa'iil iyo Falastiin iyo sidoo kale sida lagu sheegay war-saxaafadeedkaasi madaxtooyada Masar sidii ammaanka labada dhinac iyo deganaanshiyaha gobolka looga shaqeyn lahaa. wadahadalada nabadda ee u dhaxeeya Israa'iil iyo Falastiin ayaa burburay sanadkii 2014 waxaana dadka ka faallooda arrimaha siyaasadda ay sheegeen in rajada laga qabi karo in lasoo nooleeyo ay tahay wax aad u yar. mid ka mid ah aasaasayaasha Taliban haddana ah ra'iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda ku-meel gaarka ee Afghanistan ayaa maanta baahiyay cod uu ku sheegay in uu nool yahay isla markaasina uu caafimaad qaba kadib markii baraha bulshada ay qabsadeen warar sheegaya in uu dhintay. Mullah Cabdulqaani Baradar oo isagu toddobaadkii tagay loo magacaabay ninka ku xiga Mullah Maxamed Xasan Akunda oo hogaaminaya xukuumadda ku-meel gaarka ee Taliban ayaa dacaayad raqiis ah ku tilmaamay xanta ku saabsan dhimashadiisa. wararka la xiriira dhimashadiisa ayaa aad u qabsaday baraha bulshada gaar ahaana dalka India halkaasi oo lagu sheegay in lagu dhaawacay hoobiye kadib markii iska horimaad uu dhex maray madaxtooyada Afghanistan iyo sidoo kale laba kooxood oo ka kala tirsan Taliban. kooxda Taliban ee dalka Afghanistan qabsaday ayaa sheegay in haweenka axadii shalayta ahayd ay sii wadan karaan inay ku sii bartaan dalkaasi jaamacadihiisa iyo iskoolada kala gedisan waxbarashada haddii ardayda lagu kala saarayo lab iyo dhadig isla markaasina aysan fasalada si qura u wada fariisanaynin wiilasha iyo gabdhahaba.
kusimaha wasiirka waxbarashada ee daalibaan cabdulbaaqi xaqaani ayaa isaga oo markaasi ka hadlayay arrimahaasi shir jaraa'idna ku qabtay kaabuul waxa uu difaacay kala soocidda ardayda ee jinsiga isaga oo ku dooday markaasi in noocaasi haddii la sameeyo ay waxbarashadaasi ay tahay mid ka soo horjeeda islaamka iyo caadooyinka dhaqan ee dalka afghanistan. wasiirka ayaa sheegay in keliya macalimiinta haweenka ah loo ogolaan doono in ay waxbaraan gabdhaha ardayda ah islamarkaasina aysan yaraan doonin macalimiinta haweenka ah, laakiinse haddii si dhab ah loo rabo ayuu yiri ragga ayaa sidoo kaleeto loo ogolaan doonaa in ay dumarka waxbaraan ayadoo aysan fasal qur ah isku keliyeysan doonin. aad ayay u mahadsan tahay sahre cabdi axmed oo inoo akhrisay warkii caalamka. halkaad nagala socotaanna waa v o a. aan ku bilownay ku dhowaad 30 musharax oo u tartamaya 8 kursi ee aqalka sare ee ka soo gala maamul goboleedka Hirshabeelle ayaa maanta khudbado ka horjeediyey baarlamaanka maamulkaas. doorashada ayaa iyaduna dhacaysa maalinta berita ah. warbixintan waxaa inoo soo diray Xuseen Xasan Dhaqane. 27 musharax ee berito u tartami doona kuraasta aqalka sare ee deegaan doorashadoodu tahay Hirshabeelle ayaa maanta khudbadahooda ka horjeediyey xildhibaanada baarlamaanka Hirshabeelle. guddiga doorashada ayaa musharax walba u ogolaaday 10 daqiiqo si uu taariikhdiisa iyo waxqabadkiisa ugu soo bandhigo xildhibaanada. goobta hadal jeedinta ayaa waxaa ku sugnaa guddiga doorashada heer federaal iyo ka maamul goboleedka Hirshabeelle. muuse suudi yalaxow oo ka mid ah xildhibaanada aqalka sare ee wakhtigu uu ka dhammaaday ayaa mar kale waxa uu u taagan yahay in dib loogu doorto kursigii uu ku matalayay Hirshabeelle. hadal kooban ayuuna goobta ka jeediyey. wax warkaygu ma badnaa doono, wax aan soo qabtay ma aqaan, ma ii miisaan, sanduuqa dhaladahaan ka arki doonaa, waxaan qaban doonana ma ogi, qaayiban ka ah. waxaan idinka codsanaa sanatar aqalka sare ahaan ahay, haddaan u qalmana iigu celsha. haddii awal ad i dhibsateen na ummadiinna ay dhibsatee iga reeba. danjire maxamed nuur tarsan oo ka mid ah musharaxiinta aqalka sare ee Hirshabeelle ayaa isagana waxa uu ka waramay waxqabadkiisa haddii la doorto. waxaan ka damacsan Hirshabeelle waa labada gobol oo la isku dabaray, waa labada gobol oo ugu kheyraadka badan wadanka. hadday noqoto biyo, hadday noqoto dad, hadday noqoto beero, hadday noqoto bad, hadday noqoto kalluun. waxaan rabnaa in ay noqoto sida kheyraadka u yaallo inay ula yaasho, dadkuna u ekaadaan, magaalooyinkoodana u ekaadaan baan rabnaa. waxaan rabnaa inaan bedelno. waxaad aragteen sanataro ad doorateen oo idinka taga ee 4 sano dabadeed idin dhaha haddaan koynee ma rabo aniga. halkaana waxaan ka furaya xafiis oon bishiiba hal mar imaanahayo, hiiraanna waxaan ka furaya xafiis aan bishii hal imaanahayo. waxaan samaynayaa sekretariyad iiga qaada dadka cabashadooda iyo dhibaatadooda. markaan imaado oon arko cabashadooda mid kasta meeshay leedahay ayaan u qaadi doonaa. cabdi daahir guure gudoomiyihii hore ee degmada Buulaburte oo ka mid ah mas'uuliyiintii goobta joogtay ayaa waxa uu VOA uga waramay hadal jeedinta musharaxiinta iyo waxa lagu qiimeyn karo. khudbadaha way wanaagsan yihiin, dad badan oo meesha ka khudbeeyey. waxaan dhihi karaa markaan waxay ka bedelan tahay dowlad goboleedyada kale sida loo furay oo tirada badan oo loogu tartamayo, walow weli aan mataqaanaa iska jiraan waxyaalo aan madmadoobaho dadka qaar kuraasta ay mataqaanaa ay sidii loogu talagalay uga tartamin. aad iyo aad aan usoo dhaweynaa, laakiin waxaan leeyahay baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle labaad waxaan ugu baaqaa dadka u leh tayada iyo quality-ga ula dowlad goboleedka Hirshabeelle inay doorashada wakhtigooda ay qalinkooda siiyaan. maanta fursad ay haystaan ay ku dooran karaan qof wanaagsan. musharaxiintii khudbadaha jeediyey maxaa is leedahay qofka khudbadiisa dadku ay u riyaaqeen oo la dhihi karo hadallo ballanqaadba ha u badnaadaan oo dadka qiimo geliyey ama farxad geliyey ayuu meesha ka jeediyey? xuseen waa mahadsan tahay. khudbadaha dadka waa la yaqaanaa. qofka siyaasiga ahoo wax rabaa wuxuu isku soo aadisanaa wuxuu sheegi karo iyo waxuuna sheegisa qaban karin iyo waxaaso dhan uu ka hadlaa. laakiin dadka waa la yaqaanaa, qofka wuxuu qaban karo waa la yaqaanaa. xildhibaanada doorashada samaynaya oo Hirshabeelle la dooranaya aqalka sarena dadka way yaqaaniin. waxaan leeyahay inayna ku qaldamin dad aan mataqaan Hirshabeelle mustaqbalkeeda 5 sano ka socota aan waxba saameyn ku lahayn oo matali karin. dadka waxa Hirshabeelle ka qaldan sixi kara inay doortaan oo soo jeedina. musharaxiinta maalinta berita ah ku tartami doona 8 kursi ee aqalka sare Hirshabeelle ayaa waxay tiradoodu gaaraysaa 27.
waxaana tartanka ka haray ilaa 6 musharax oo markii hore liiska kusoo baxay. guud ahaan ammaanka magaalada jowhar ayaa aada loo adkeeyey. magaaladana waxaa si weyn looga dareemayaa ololo ay wadaan musharaxiinta oo ay ku doonayaan in xildhibaanada ay cod kaga helaan. xuseen xasan dhaqane, v o a, magaalada jowhar. gudoomiyaha golaha wakiilada somalilan ayaa maanta magacaabay guddi hoosaadyada golaha, kuwaasi oo ka kooban 10 guddi. warkan waxaa hargeysa ka soo diray khadar maxamed akule. gudoomiyaha golaha wakiilada somalilan cabdirasaaq khaliif axmed ayaa maanta magacaabay guddi hoosaadyada aqalka wakiilada somalilan uu yeelan doono, sida uu dhigaya xeer hoosaadka iyo dastuurka somalilan. qoraalka ka soo baxay xafiiska gudoomiyaha golaha wakiilada somalilan ayaa lagu sheegay in guddi hoosaadka golaha wakiiladu ay ka kooban yihiin 10 guddi, iyadoo xubnahaasina halkaasi uu ka akhriyey xogayaha golaha wakiilada somalilan cabdirasaaq siciid ayaanle. dhismaha guddiga golaha wakiilada guddiga joogtada yaashaxa axmed muuse jaamac diriye 1 mudane axmed muuse jaamac diriye 2 mudane faysal yuusuf jaamac xaashi mudane nuur cusmaan guuleed faarax mudane saleebaan maxamed faarax geedi goox mudane xasan axmed cilmi igelle xasan kayse mudane cabdilaahi muuse cabdi cawaale mudane axmed maxamed xasan ducaale mudane maxamed faarax jaamac mudane axmed xasan cali yuusuf casoowe mudane maxamuud saalax cabdi axmed mudane bila cabdi ducaale samatar mudane cabdixakiim hugur cabdi guuleed. waxa weeyaan 13 waa guddiga joogtada. guddiyada iyaga iska dhex daranaya. guddiga dhaqaalaha iyo maaliyadda mukhtaar ibraahim xasan cilmi abibakar siciid cali gaboobe maxamed khadar daahir cabdikariin maxamed maxamuud cumar axmed maxamed hurre ducaale cabdilaahi yuusuf axmed abakar cabdirashiid cabdilaahi muuse maxamed siciid jaamac xasan maxamed cabdikariin aadan cali dubad. waa 9 xubnood. guddiga dhaqaalo guddiga howlaha guud tiknolojiyadda iyo guriyeynta iyo gaadiidka nuuraddiin axmed dayib cabdiraxmaan jamaal aadan diiriye axmed maxamed cabdilaahi jaamac fanax saleebaan axmed carab jaamac injineer xirsi cabdilaahi xirsi odowaa cali xuseen nuur kooshin iyo cali jaamac caraale bile cali qaran. waa 7 xubnood guddidaasina. guddida dabagalka iyo hantida qaranka axmed maxamed maxamuud kaare siciid maxamed ismaaciil diiriye sokeeye maxamed abiib yuusuf jaamac injineer axmed cabdi ibraahim cige jaamac axmed ogle caanaboodhe xasan cumar xasan rooble xasan ogaal iyo mustafe axmed cabdilaahi khayreeye. waxa weeyaan 7 xubnood. sida ku cad warqadda ka soo baxday xafiiska gudoomiyaha golaha wakiilada somalilan ee uu ku magacaabay 10 guddi hoosaad ee golaha wakiilada uu yeelanayo waxaa ku cusub guddida shareecada islaamka, taas oo golayaashii wakiilada ee hore aan guddi hoosaadyadooda ku jiri jirin. guddida garsoorka cadaaladda shuruucda iyo xuquuqul insaanka barkhad jaamac batuun barkhad jaamac xisi batuun guuleed maxamed warsame guuleed yaxya cabdilaahi axmed ismaaciil areeye ararse cabdilaahi sheekh maxamed axmed cali fu'aad axmed diiriye faatax faarax khadar cali xasan maxamed iyo amiin saleebaan jaamac rooble. waa 7 xubnood. waa guddida garsoorka cadaaladda iyo shuruucda. guddiga arrimaha deegaanka khayraadka dabiiciga iyo wax soo saarka tamarta cabdiqali maxamed aadan cali mukhtaar xasan maydhane shirdoon saleebaan diiriye barre cali saleebaan nuur warsame faarax food axmed yuusuf nuur cabdiraxmaan yuusuf maxamed cabaale jaamac abubakar maxamed mire maxamed jaamac liibaan. waa 8 xubnood. guddiga siyaasadda arrimaha dibadda iskaashiga caalamiga iyo qorshaynta iyo maalgashiga yaasiin xaaji maxamuud xiig faratoon maxamed xuseen jaamac rambo bashiir xuseen xirsi bulaale maxamed xasan siciid maxamuud qaasim aadan saleebaan cali xuseen ismaaciil jaamac xirsi budul maxamed jaamac ismaaciil kotbuur iyo cumar jaamac faarax. waa number 8. waa 8 weeye. guddiga arrimaha gudaha iyo nabadgelyada cabdilaahi maxamed aadan cali cabdiqani maxamed aadan cali mukhtaar xasan maydhane shirdoon saleebaan diiriye cali
سليمان نور ورسمة فارح فود أحمد يوسف نور قروجي عبد الرحمن يوسف محمد عوالي جامع أبو بكر محمد مري محمد جامع ليبان gudida arrimaha shareecada iyo dhaqanka axmed dayib axmed guuleed kucadeeye maxamuud xayir ducaale diriye cabdinaasir yuusuf cusmaan qodax aadan cusmaan xarbi cawaale jimcaale axmed cilmi yoonis iyo xuseen cabdi axmed waa lix xubnood ay gudaasana gudida ugu dambaysa oo ah gudida arrimaha bulshada axmed jaamac saalax maxamuud xasan saleebaan dhuxul laabsalaax mubaarak xuseen maxamed xoldheere محمد حسين ميراني أبسية صالح محمد ديرية حجالة أحمد عبدي دعالة والحد إبراهيم محمد إسماعيل بورلي intaasi kadib waxaa sidoo kale xogayaha golaha wakiilada somalilan uu sheegay in ay 2 cisho gudahood ku fadhiisan doonaan guddiyadaasi la magacaabay maanta si ay u doortaan guddoomiye iyo guddoomiye ku-xigeen khadar maxamed cakulle v o a hargeysa haatanna dhegaystayaal ku soo dhowaada xubintii ilayska v o a waxaa soo jeedinaya maxamed colaad xasan. kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska v o eda oo aan toddobaadkan ku eegayno hubantila'aanta mustaqbal ee ay wajahayaan wariyaasha iyo warbaahinta afghanistan qabsashada taalibaan ee dalkaasi iyo ka bixitaankii maraykanka kadib. iyadoo ciidamadii maraykanka iyo xulafadiisii ay ka baxeen afghanistan caasimadda dalkaasi ee kaabuulna ay gacanta ugu jirto maamulka taalibaan ayaa boqolaal wariyaasha reer afghanistan oo u badan haween waxay walaac weyn ka qabaan hubaanla'aanta mustaqbal ee ay wajahayaan. muddo haatan bil iyo xoogaa laga joogo stray krimi iyo saygeeda waxay wararka ka soo tabinayeen jiidda hore ee gobolka heraad, laakiin maanta waxay ku dhuumanayaan dalka bakistan kadib markii ay afghanistan ka soo carareen. stray krimi oo qadka skype-ka kula hadlaysay v o eda ayaa sheegtay in wariyaashu aysan ku badbaadaynin afghanistan inkastoo ay taalibaan sheegtay inaysan dhibaato ku qabin wariyaasha. afhayeenka taalibaan waxa uu leeyahay dhibaato kuma qabno wariyaasha, laakiin sheedda waxaan ka aragnaa inay wariyaasha beegsanayaan iyagoo guryahooda ka raadinaya. sidaad la socotana in ka badan 200 oo qof oo isugu jira wariyaal iyo dadka u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada iyo xuquuqda aadanaha ayaan jaan iyo cirib meel ay jiraan aan loogayn. tani waxay kuu muujinaysaa in wariyaashu aanay badbaado haysan, siiba dumarka wariyaasha ah aan loo ogolayn inay shaqaystaan. hay-adaha warbaahinta ee caalamiga ah ayaa sheegaya in ay ku adkaatay in wariyaasha reer afghanistan ee la shaqaynayay ay dalkaasi ka soo wada saaraan. hay-ad caalami ah oo ay leeyihiin dumarka warbaahinta ka shaqeeya ayaa iyana sheegtay in bahda u ololeysa xorriyadda saxaafadda ay soo gudbinayaan kumanaan codsi oo la xiriira sidii loo badbaadin lahaa wariyaasha. naadiya hofman oo ka tirsan hay-addan oo v o eda u warramaysay ayaa tiri runtii wax iska cad ayay ahayd in howshii ugu adkayd ee murugsanayd aanu wajahnay intii aan isku dayaynay inaannu taageerno wariyaashii noloshoodu ay halista ku jirtay markii ay taalibaan qabsatay gobollo badan oo dalkaasi ah ilaa ay kala wareegtay caasimadii dalkaasi ee kaabul. xitaa wariyaashii ay u suurto gashay inay dalkaasi afghanistan ka cararaan waxay aaminsan yihiin in weli ay halis ku jiraan. stray krimi ayaa ka mid ah kuwa khatarta dareemaya. hadda waxaan joogaa bakistan, laakiin maskixiyan xasilooni ma haysanno. xaaladeenna nafsi ma wanaagsana, waayo weli aad baan u walwalsanahay. iyadoo ay wariyaasha isku dayayaan inay helaan dariiq ay uga baxaan afghanistan ama ay ku dhuuntaan dalkaasi gudihiisa, ayaa kuwo badan oo ka mid ah ay ka baqayaan in warbaahinta iyo wariyaasha dalkaasi la caburiyo oo ay adkaato in xogta afghanistan loo soo gudbiyo shacabka dalkaasi iyo dunida inteeda kale. naadiya hofman ayaa ka mid ah dadka sidaasi qaba.
runtii waa halxiraalo adag oo ah haddii wariyaashu ay ka tagaan afghanistan inaanay jiri doonin cid ogaan karta waxa waddankaasi ka socda. haddii aysan teginna kuma badbaadayaan oo waxaa laga yaabaa inay sii wadi kari waayaan shaqadooda wariyanimo. iyadoo hadda ay dalkaasi ka tageen maraykanka iyo xulafadiisa gaashaanbuurta nato, walaacu waxa uu ku haray dadkii looga tegay afka libaax sida ay qabto Storay Krimi. بنابراین چگونه ما میتونیم که مسئول میمونیم؟ اصلا نهاد وجود نداره. ما در شهر هستیم که فعلا sideen ku xaqiiqsan karaa badqabkeenna? ma jiraan ururo nagu taageeraya hawsheenna. waxay wariyaashu joogaan magaalooyin gacanta u galay xoogag muddo sannado ah ka dagaalamaya buuraha. sidee uga fakari karaan ammaankeenna? waxay yaqaanaan ayaa ah keliya dil iyo dhiigga la daadiyo. qabsashada taalibaan ee afghanistan ka hor ayaa xilligii ay socdeen wadahadaladii u dhexeeyey dowladda ashraf ghani iyo taalibaan waxay taalibaan iyo taageerayaasheeda kordhiyeen hanjabaadda iyo weerarada ka dhanka ah wariyaasha, sida lagu sheegay warbixin ay daabacday horaantii sanadkan hay-adda xuquuqda aadanaha ee Amnesty International. 46 xubnood oo ka mid a shaqaalaha warbaahinta afghanistan oo intii u dhexaysay bishii Novembar ee sanadkii 2020 iyo bishii Maaj ee sanadkii 2021 ay la hadashay Amnesty International si ay wax uga ogaato xaaladaha ay ku shaqeeyaan, ayaa hay-adda u sheegay inay la kulmeen hanjabaado loo soo marsiinayo dhinacyada baraha bulshada, kuwa toos ah oo afka ah iyo xitaa mararka qaar weeraro gacanka hadala. taageerayaasha jidbaysan ee taalibaan ayaa ku eedeeya wariyaasha inay wakiilo u yihiin wadamada reer galbeedka, islamarkaana lagu duufsaday mabaadi'da reer galbeedka. waxa ay qabaan, sida ay sheegtay Amnesty International, in lala dagaalo wariyaashu inay qayb ka tahay dagaalkii ay ka wadeen Afghanistan. si la mida wariyaasha Afghanistan, wariyaasha Soomaaliyeed ee ka soo shaqeeyay gudaha dalka ama haatan ka shaqeeya ayaa cabsi iyo walwal dareema xilliyada isbeddelka maamulada gacan ku haynta magaalooyinka ku kala wareegaan. waxaa ugu daraa xilligii ciidamada Ethiopia ay Muqdisho kula dagaalamayeen ciidamadii maxkamadaha ee iyana awoodda kala wareegay hogaamiye kooxeedyadii Muqdisho gacanta ku hayay. isbeddeladaasi iyo khatarihii ka dhashay waxaa lagu qaarajiyey wariyaal badan, kuwo kale oo badanna naftooda ayay la soo baxsadeen. axmed cabdiraxmaan jaakad oo xilliyadii ugu adkaa ka mid ahaa howlwadeenadii idaacaddii Horn Africa ee beri Muqdisho ugu afka dheerayd, waxa uu u soo joogay marar kala duwan oo gacan ku haynta Muqdisho lala kala wareegay. haatan waxa uu ku nool yahay dalkan Maraykanka. waxa uu ka warramayaa dareenka wariyaha goobaha colaadaha ah xilliyada isbedelada ay dhacaan. mar kasta wariyuhu waxa uu la kulmayay dhibaato cusub. mar kastoo isbedel dhacana naxdin cusub ayaa usoo siyaasay wariyaha, waayo waxa aanu ku tashan karin haddii gruubkii hore uu soo arkay sida u dhaqmaan, kan ku xiga sida u dhaqmayo ama ula dhaqmayo ayaanu marnaba ku tashan karin. intaa waxaa kasii daran, qolo kastoo timaadaa amaro cusub ayay la imaanaysaa. mar kasta wariyuhu waa u dhibaato cusub. qolo kasta oo timaadaa kuwa kale ee ka soo horjeeda ma ogola hadalladooda iyo ujeeddadooda iyo warka ay leeyihiin oo dhan ma ogola. wariyaha waa calolxumo kale oo kusoo siyaaday. mar kasta qofka wariyaha waxa uu ku dul socdaa seef laba af leh oo marnaba dhan uga degi karin. xaggan ugama degi karo, xaggan ugama degi karo. xaggan hadduu uga dego, kuwaana way haystaan, way qaylanayaan, way dhibaataynayaan. kuwaana sidoo kale way dhibaataynayaan. marka mar kastoo isbeddel dhaco, wariyaha goob kastoo ku sugan yahay adduunka meel kastoo ay tahay, isaga dhibaato ayaa usoo hoyanaysa markaas, isagoo ka fikiraya waxa ay la imaan doonaan iyo siday ula dhaqmi doonaan. waayo wuxuu isku dayaa isagu inuu ka shaqeeyo waxa wanaagsan ee bulshada dhexdeed ah. iyaguna waxaa laga yaabaa in badan inaanay doonaynin waxa wanaagsan ee la sheegayo. mar kasta u dhibaato wariyaha. axmed jaakad ayaa aaminsan in waxa maanta ay dareemayaan wariyaasha reer Afghanistan inuu dareemo wariye kasta oo xaaladda oo kale la kulma. colaad kama duwanaa. waxaan is leeyahay midii aad dareemaysay xilligii aad howshaa ku jirtay ama wariyaasha Soomaalida dhan ay ku jireen ayuunba iyaguna dareemayaan, waayo waa isku ujeedo, waana isku shaqo. midaas ayaa waxay keenaysaa inay ka sinaadaan dareenka welwelka xambaarsan ee mar kasta soo siyaadayo isbeddel kasta oo yimaada. gurub kasta oo yimaada, meel kastaoo caalamka joogo, waxay la imaanayaan qawaaniin iyo shuruuc cusub oo ay markaa doonayaan inay ku dhaqaan dadka meesha ku nool. marka wariye halkaa ku noolay wuxuu joogto u yahay mar kasta cabsi iyo welwel. cabdirasaaq sulaymaan qorsheel waa aqoon-yahan gorfeeya arrimaha bariga dhexe iyo dunida islaamka. isagoo ku sugan magaalada Qaahira ayuu barnaamijka Elayska VOA da warramayay.
waxa uu qabaa in taalibaan ay wariyaasha u muujin doonto dabacsanaan. anu waxaan isleeyahay iyaguna sida ay sheegaan oy waraysiyo badan bixiyeen waxay dhahdaan saxaafadda xor baanu ka dhigaynaa, amuuriyada xor bay u noqonayaan. sidoo kale waxay sheegeen dadkii xukuumaddii talada laga tuuray ee ashraf qani ciidamadii u shaqayn jiray, wasiiradii, taliyayaashii haba kala reebin inay saamixeen oy caafis u fidanayaan saacadan laga bilaaban aanay waxba u haysan, maadaama dee dalkii la wareegeen inay dalka isku wadi karaan ayay tijaabinayaan. markaa cabdirasaaq waxa uu ka waramayaa sida lagu aamini karo damaanad qaad dhinaca ammaanka iyo xorriyadda warbaahinta iyo wariyaasha ah oo ay sameeyaan taalibaan. ururadu isku wada ma qaadaan oo kuwa badan baa dee wado khaldan oo wadadoodan ama wado lamid ah ama haya. marka dee iyagu wada hadallay ogolaayeen oo qadar baa lagu wada hadlay oo dee xafiisya uga furnaayo. si ka duwan cabdirasaaq ciid cali macalin oo ah saxafi ka faallooda arrimaha carabta iyo bariga dhexe waxa uu ka waramayaa xaaladda ay wajihi karaan wariyaasha reer afghanistan. waxay samayn doonaan in ay awoodda ama mataqaanaa fikirkii aragti uu iska leeyahay wariyuhu in ay markaas kaantaroolaan dadka arrimaha bulshada u adeegana ay xarakadooda ay la socdaan oo waxa waaye dadkii marka waxay gelinayaan xasaar ayay gelinayaan, noloshoodii waxa waaye cirir ay ka dhigayaan. markastana waxa waaye dadkaasu waa dad ayaga ay indhaha ku hayaan ayna la socdaan. marka waxaan arkaa in ay dadkaasu mataqaana ay yihiin victim inay yihiin. ciid ayaa qaba in aan la aamini karin damaanad qaad ay sameeyaan ururada sida taalibaan oo kale ah. taa waxaan kaa odhanayaa maadaama dee ururku uu yahay urur waxa waaye mabda gaara ku salaysan, aragti gaarana aaminsan, way adag tahay in lagu kalsoonaada. sababta waxa waaye caalamku waxa waaye waa la kala aragti duwan yahay, mabda'ana waa lagu kala duwan yahay. iyadoo saytana waxa waaye waa la wada nool yahay. marka maadaama aysan soo dhowaynayn aragtidaas kala duwan ay wada noolaanshihiina aysan aqbalayn ay tahay waxa waaye mabda'eenna ayaa lagu soconaya. marka way adag tahay cafiskaas ay fidiyeen in waxa waaye lagu kalsoonaada. saan kuu sheegay waqti intay caalamka xoogaa waxa iska dhaadhicinayaan keliya ay sugayaan waxa waaye ayaguna xoogaa ay yara xoogeen. ciid waxa uu isbarbardhig ku samaynayaa xaaladihii ay wajaheen wariyaashii Soomaaliya iyo waxa ay wajihi karaan kuwa dalka Afghanistan. hadda markii aan ka hadalno Soomaaliya, markii aan ka hadalno kale waxa waaye wariyaal badan ayaa lagu dilay oo markaas aad waxay u ahaan activist u ahaa oo waxa waaye bulshadana afkooda ku hadli jiray, dadka dhibanna waxa waaye wax u qaban jiray oo waxa waaye meelo badanna ka muuqan jiray. dadkaas waxa waaye siyaabo badan ayaa loo kala dildilay. marka waxa waaye qofkii ma cabiri karo fikirkiisii. haddii uu markaas fikirkiisa cabirana waxa waaye naftiisii ayuu wuxuu ku gelayaa ama naftiisii ayaa waxay ku gelaysaa halis. waxaa jira warbaahin caalami ah oo ka welwelsan wariyaashooda ka howlgala Afghanistan, waxaana ka mid ah idaacaddan VOA-da. kusimaha agaasimaha VOA-da Yolanda Lopez ayaa toddobaadkii tegay sheegtay inay VOA-da iyo hay-adda USAGM ee ay hoos tagto ay labaduba si dhow ula socdaan xaaladda badqab ee wariyaasha VOA-da uga soo warrama Afghanistan. waxay tiri waxaan saacad walba iyo mar walba si hagar la'aanah ugu shaqaynaynaa sidii aan u xaqiijin lahayn badqabka saaxiibadeen ugana caawin lahayn dariiq ay uga baxaan Afghanistan kuwa doonaya in sidaasi ay yeelaan. isla maalintii Jimcaha ee toddobaadkii tegay wariyaal ku sugan Afghanistan ayaa sheegay in xoogagga Taalibaan ay u geysteen jirdil iyo xarig kadib markii ay damceen inay tabiyaan dad dibadbax dhigayay. sawirro lagu baahiyey internetka ayaa muujinaya laba wariye oo ka tirsan wargeyska Itilatros kuwaas oo dhaawacyo qaba kadib markii lagu xiray caasimadda Kabul. intaasi ayaan dhegaystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii ilayska VOA-da ee toddobaadkan oo aan ku soo qaadanay xaaladda adag ee ay wajahayaan wariyaasha reer Afghanistan kadib la wareegistii awoodda dalkaasi ee Taalibaan. intaan barnaamij midka la mida ku kulmayno waa Maxamed Colad Xasan oo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo. aad ayuu u mahadsan yahay maxamed colaad oo inala socodsiiyey barnaamijkii ilayska VOA. haatana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka tubta nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka. barnaamijka tubta nolosha waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a
xaalad bani'aadannimo oo halisa ayay wajahayaan ku dhowaad 350 qoys oo muddo bil ka hor ah gaaray xero barakac oo ku taalla degmada kaxda ee duleedka magaalada muqdisho. waxaad kaloo maqli doontaan dhallinyaro qaxooti ku ah nairobi oo dadka qaxootiga ah ka caawiya inay u qoraan araajida ay u dirsadaan hay-adaha qaramada midoobay ee qaabilsan qaxootiga. xubintii cayaaraha iyo kaalmihii heesaha ayaan barnaamijkeenna ka marnayn. aynu ku horrayna xaalad bini'aadannimo oo halis ah ayay wajahayaan ku dhowaad 350 qoys oo muddo bil ka hor ah gaaray xero barakac oo ku taalla degmada kaxda ee duleedka magaalada muqdisho. warbixintanna waxaa noo soo diray wariyaha v o a xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste. xaalad bini'aadminimo oo halis ah ayay wajahayaan ku dhowaad 350 qoys oo muddo bil ka hore soo gaaray xero barakac oo ku taalla degmada kaxda ee duleedka magaalada muqdisho. barakacayaashan oo ka yimid deegaano ka tirsan gobolka shabeellaha hoose ayaa guryahooda uga soo hayaamay siyaabo kala duwan oo ugu weyn tahay colaado daba dheeraaday ee ka oogan gobolkaasi. waa kuwan qaar ka mida barakacayaashaasi oo tubta nolosha la hadlay. maanta 32 birnoo intaan joogo walaal walaalo noloshii zaid ay u xun tahay anigoo gabar Soomaaliyeed ah wax hada gacanteeda ku jir lahayn guriyii way naga gubteen dib iyo colaad rafaada guryaha aaga soo taqan kun shinaad xabis muslimiga aaga soo gato jeebkayga kuma jiro saana oo fadhiya iga daacatay waxa ilaahay u keenaan waxa meel ku ogahayn male cunugan yara igu xiriiro aan u maheysto waxaan u haysto male toddoba cunugooda wata waxaan far oogu heen hada male xaq alla wax ka sii waa ifur aabaho 25 jooga aniga waxa aamil ama sandarkan ku dhalay wallahi waa insha Allah oo walaal weyn la suuna waa iska dhib qabnaa ilmaan wadana oo yaable aniga intaay ilmahaanyo istagaajeysana walaalaan weyn soo jarsani naay mugucisi oo waa kooy ilaahay weyn waxid inuu tuwaano wax noo soo taraa aniga maanta shangan haya alxamdulillah walba ilaahay weyn waxid waxaan soo dhigo aabihiis waa jooga sabida aan loo jooga aniga oo barkaan waqti ama meeshan joognaa inta aan ku waqti aan joogni meeshan asina oday waaye walba ilma wax karwaane handii waa tagi meeshiisu tagi waxad meesha la qabtay lagu barg baan diriji waa ka ruuriyo dagaal inta le marka waa iska dhibeysanaay walaalay waxaan waqtaan ilaahay weyn wixii gudoomiyaha waaxda saddexaad ee degmada kaxda Zakariya Maxamuud oo kamid ah mas'uuliyiintii dadkaasi ku soo dhaweeyay kaamka ay soo magansadeen ayaa carabka ku dhuftay in tiraha weena ay dhabaha ku soo umuleen intii ay ku guda jireen safarkii ay Muqdisho ku soo beegsanayeen. maanta waxaan joognaa santarkan waxaa soo gaaray dad barakacayaala oo qaarkood ka soo barakacay roob la'aantii iyo qaar ka soo barakacay colaadihii ugu dambeeyay ee ka dhacay gobolka Shabeellada Hoose. qaasata sidee noo sheegeen dadkan waxay ka soo guureen Bariire iyo Owdigle iyo Sabiib iyo Caanoole. dadka markay santarkan soo gaareen santarkan ay u jeedaan waxa ku umushay dhowr hooyo oo intay jid ku soo jireen qaarkood umuleen qaarkoodna meeshan si nabad qaba ay ku soo gaareen. dadkan waxaan u sameynay in aan ku soo dhaweyno meeshan geedkan hooskan qabow ah u jeedaan dibadejin inaan ugu sameyno dadkan ah u jeedaan laakiin weli ma soo gaarin taakuleen ha noqota xakay adad ama hal kale. waxaan dadkan baaq dheer ugu direynaa hay-adaha caalamka hay-adaha deeqda bixiyo iyo dowladda federaalka inay dadkan gurmad la soo gaaraan iyo intii dad muxsiniin oo jeebkooda ilaahay wax geliyay. ugu dambeyntii Zakariya ayaa ka warbixiyay xaaladaha kala duwan ee ay ku sugan yihiin barakacayaasha ku jira guud ahaan xeryaha degmada kaxda ku yaala. degmada kaxda waxay martigelisay barakacayaashii ugu badnaay ee ka soo barakaco gobolka Shabeellada Hoose iyo Baay iyo Bakool. degmada kaxda iyadoo kaashanayso maamulka gobolka Banaadir gacan weyn ay fidiyeen dadkii ugu dambeeyay ee hadda fatahaadaha ku yimaado iyo kuwii roobka saameynta ku yeeshay qaybta dhimanna waxaan rajaynaynaa insha Allah in wixii baahiya loo dhammaystiro oo qabiye ah. marka waxaan rajaynaynaa insha Allah barakaca in loo sameeyo inay barakac ka baxaan ay noqdaan insha Allah dad deegaana. kuwii hore ee u yimid 2007 waxay noqdeen kuwa deegaana. waxay barteen farsamada gacanta sida harqaanka, cilaan saarida, korontada, shaqooyin badan ayay barteen. hay-adaha qaarkood waxay ka heleen maalgelintaasoo ah in hooyada miis adeega loo sameeyo miiskaas adeega caruurteeda ka maareyso hooyada qaarkeed dukaan yar loo dhiso iska maareyso.
marka waxaan rajaynaynaa hay-adahan inay ummaddaas ugu dadaalaan siday kuwii hore dibadejinta rasmiga ugu sameeyaan kuwa haddana soo gaarana inay ugu sameeyaan degmada kaxda gebi ahaanteeda 3 waaxood waaxda koowaad ee jenaraal liiqliiqato iyo waaxda labaad waaxda afaraad ee shimbiraale iyo waaxda saddexaad ee cumar fiyaasko aad u soo gaareen saacad kastana waa dhinac taagannahay maadada ugu badan ee hadda ka cabaadayaana waxaa waye musquliyo roobka dumiyey iyo baco intaas baahida hadda ugu weyn waaye waxaan rajaynaynaa insha allah inay ka bixi doonaan taasna ummadooda Soomaaliyeed ay saacad walba garab taagan yihiin kaamka tiradooda aaday u badan yihiin santaro badana ku yaala degmada kaxda santaradaas markii la qiyaasay ilaa 180 santar ay gaarayaan santaradana waxay hoos yimaada intaasoo kaam marka waxaan isku dayaynaa insha allah bismillaahi kariim in santarada dadkan ay ka baxaan meeshaan ay u noqoto hooy rasmiya oo magaciisa muxuu ah ama deegaanadoodii dib loogu celsho dadkan aa ujeedid maanta barakaca ee walaalaheena maanta waxaa waaye dadkii dalaga noo soo bixin jiray sida qudaarta qaybaheeda kala duwan marka dadkan waxaa waaye dad ilaahayna magaciisa muxuu gacantooda u barakeeyey dhul barakeysanna ka wada yimid oo waxaa waaye ciidda Soomaaliya gabe ahaanteeda waa diamond marka waxaan rajaynaynaa insha allah inay fursadda ay haystaan maanta ay ka faa'iideeyaan ilaahayna dhulkooda insha allah amni istiqraar uga dhigo wixii abaarna ilaahay ka saaro dhinaca raashinka weli hadda ma arkin laakiin waxaa jirto rajooyin badan oo la qabo insha allah waxaan rajaynaynaa sida ugu dhaqsiyaha badan inay raashin iyo ku helaan caafimaad daawooyin badan marka waxaan rajaynaynaa insha allah in ay helaan caafimaad dhammaystiran si kastaba ha haatee gudaha iyo duleedka magaalada muqdisho ayaa waxaa isi soo taraya barakacayaasha soo gaaraya waana kuwo badankooda wajahaya duruufo isku mida oo igu wen yihiin cunola'aan biyo iyo musqulo yari ay u sii dheer tahay caafimaad darri iyo waxbarasho la'aan waana kuwo dalbanaya had iyo jeer in xaaladooda si dhow loola socdo xasan kaafi qoyste v o a muqdisho waxaan idiin soo qabanayaa codadka fanaaniinta xamdi bilan iyo mursal muuse tubka nolosha ayaa dhegaystayaal weli la soconaysaan haatanna kenya dhallinyaro qaxooti ku ah magaalada nairobi ee dalka kenya ayaa ka caawiya dadka qaxootiga ah ee ku nool magaaladaasi gaar ahaanna xaafadda islii luqadaha xisaabaadka iyo sidoo kale araajiyada ay u dirsadaan hay-adaha qaramada midoobay ee qaabilsan qaxootiga warbixintanna waxaa nairobi ka soo dirtay intisaar saalax xuseen cabdimaalig cabdiraxmaan waxa uu gudoomiye u yahay dhalinyaro soomaaliyeed oo isu abaabulay inay caawiyaan dadka qaxootiga ee soomaalida ah iyagoo ka caawiya dhanka waxbarashada wuxuu cabdimaalig ii sheegay in hooyooyin badan oo qaxooti ah oo wadankan ku dhaqan islamarkaana xiliyada galbihii ka shaqaysta hareeraha wadooyinka inay baraan luuqada kiswaahiliga iyo ingiliishka iyo sidoo kale xisaabaadka dhanka kale cabdimaalig waxa uu sheegayaa in sidoo kale ay caawiyaan dhalinyarada qaxootiga ah ee aan u suurtagelin inay wax bartaan dhanka qaxootiga horta waxyaala badan oo qabanaa jirta marka ugu horeysay aan qaxootiga la dhilgaraynay ama waxu qabanay waxayd markaan kalaaska ka furnay kalaaska markaan furnay waxaan u furnay bulshada dhan laakiin badanaa boqolkiiba 30 boqolkiiba 27 waxay noqdeen dumar ay u bateen maamooyin isku jira ilaa daada 30 ilaa 40 iyo gabdho badan oo 20 ilaa 30 jira kuwaasoo marka aan ahayn dadkan guryaha caadiga jooga oo maasha allah Nairobi si fiican u dhaqan waxay ahaayeen dad iska xamaaltaa kuwa shaqada kuwa banaanka wax dhigta sidii waa taqaanaa si wax banaanka loo dhigto kuwa maartay guriga ka shaqeeya kuwa shaqooyin yar rasuul kuwa aan shaqooyin bahayn kuwa 2 bil marka la joogo 3 bil qaxoontiga aada oo cuntooyin wax ka soo qaata saas isku jireen marka waxyaalo badan ku caawinay horta waxbarashada free aan ku siinay badanaa marka Nairobi yimaadaan waxbarashada Soomaaliga ma garanayaan English ma garanayaan businesskiisa loo soo bilnaa xisaabta wixii ma garanayaan marka fundamentals waxa soo binay marka hore English oo barnay Soomaali iyo xisaab aan furnay oo basic baan u furnay ka bacdi xarnay aan ku xijino waqtiga corona naga soo xiray laakiin in cilaan saarka maxaa la lahaa harqaanka waxyaalo badan inaan ugu darno ku shaqaysan karaan harqaanka oo badanaa majali
marka waxyaala badan oo kale laga saacidin waxaa ka mid ah foomyaasha UNT waxaa jirta rag mukhalasyaal oo kumanaan maxaa la Kenyan shilling uga qaata $100 maamadii wixii iyadoo free waxaa laga dooranaya $100 in form loo buuxiyo bas marka waxaan ka saacidin jirnay foomyaasha anaga noo keeni jireen anaga toos u buuxin jirnay anaga meelahaas u geyn jirnay qaxoontiyaasha toos u geyn jirnay ama waraaqada u diri jirnay kuwaad yar waan safaarada ku xiran yihiin safaaradaha waxay u baahan yihiin qof translator badanaa mukhalasa suubiyo oo lacag ka qaata anaga qof dhalinyara oo group ka mid aan ku darnaa xanana maamadan shaqada usoo dhamay asaga mukhalas u noqonaya asaga kasoo u bobsinaya asoo lacag ka qaadanayo asoo wax lacag lagama qaadanayo cabdimaalig waxaan sidoo kale wax ka weydiiyey haddii ay jiraan cid caawimaad ka siisa arrimahan ay iyagu isku howleen annaga horta iskeen wax kasoo qabsana ilaa hadda heerkaas oo sponsorship inaan ku raadsano maanu gaarin mana rabno hadda diyaar foomyaal badan u baahan tahay in process loo maro laakiin marka ugu horeysa wax markaa bilaabaysid wax markaa aad wax qabsatid oo aad heerkana gaarsiid baa lagula soo wadi karaa marka ugu horeysa anaga iskeen waxaan qabsan jirnay haddii arday iskuul laga rabo waxaa ku filan $10 oo isku jiro badanaa adi $100 $200 baa iskuulada ku baxsaa bishii waxaas marka anaga ururin jirnay boqolkiiba anaga ururin jirnay mustaqbalka insha Allah rajaynaa in hay'ado badan nagu soo xirmaan oo arday badan hadda 2 iyo 3 ka hadlayna iyo 10 meelahaas inaan kumanaan arday ama 100 arday inaan gaarsiino oo sponsorship ku helintaas caasho waxay ka mid tahay dadka qaxootiga ah ee ka faa'iidaystay barnaamijkan ay isku howleen dhalinyarada Soomaaliyeed ee qaxootiga ah kaasoo ay ku caawinayeen dadka aan fursadaha u helin inay wax bartaan isla markaana ku barayay xisaabaadka Ingiriiska iyo Kiswahiliga waxayna sheegaysaa Caasho inay ka faa'iidaysatay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. magacayga waxaa waaye Caasho waxaan ka mid ahay dadka la caawiyey oo ururka dhalinyarta caawisay waxaan nalaga caawiyey xisaabaadka waxaan nala baray xisaabaadka sida lacagta u xisaabsano Kiswahiliga iyo Englishka baa nala baray luqadii hadda waa ka siinaa si fiican markaan hay'adaha aan wax ka baahanay wanaga caawiyaan. Intisaar Saal Xuseen VOA Nairobi. markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii cayaaraha iyo Cabduqaadir Maxamed Mursal Samakaab. kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinteenii cayaaraha aan ku bilownay Bashiir Cabdi oo ah orodyahan Soomaaliyeed balse ku orda calanka dalka Belgiumka ayaa kaalinta 6aad ka galay tartanka orodada nusmaratonka ee The Great North Run oo lagu qabtay magaalada Newcastle ee dalka Britain. Bashiir oo sanadkii u dambeeyay ee tartankan la qabto kaalinta 3aad ka galay ayaa noqonaya Soomaaliga kaliya ee shalay ka qayb galay inkastoo sanadkii hore loo baajiyay saameyntii ka dhalatay aafada COVID-19 ee dunida ku habsatay. tartanka hanus maratonka oo la qabanayo markii 4aad ayaa dhowrkii jeer ee u dambeeyay waxaa ku guuleysanayay Mo Faarax oo sanadkan uga baaqday dhaawacyo soo gaaray awgood. Bashiir oo qadka telefoonka ee dalka Britain aan kula xiriiray ayaan marka hore weydiiyey waxa uu yahay tartanka nus maratonka ee uu ka qayb galay. waxaan maanta ka qayb galay tartanka orodka Great North Run loo yaqaano oo lagu qabtay magaalada Newcastle ee wadanka Ingiriiska. tartanka waxaa ka soo qayb galay dad ku dhow ilaa 60,000 oo qof oo isugu jira orodyaano dumar rag dad kala duwan ay ordayaan marka waa 22 kilomitir anigu maratonkan ordaa 42k so this was today maanta waxay ahayd 22 kilomitir. Bashiir tartankan ma markii kuugu horeysay oo aad ka qayb gashayba? may dhowr jeer hore waan orday oo la orday ninka Soomaali oo dhan tusaale u noqday Sorma Farxan la orday Sorma Farxa badiye markaa ku kalo Ethiopian labadaha na saddexaad baan ahaa dhowr jeer aan orodnay orodkan horta waxa la yiraahdaa orodkii Mo Farx baa la yiraahdaa orodkan Mo Farx intaas jeer boorday inta jeer orday dhan uu badiyay course recordigi saacada taala recordkan isaga jabiyay oo ilaa hadda looma dhawaanin markaas sanadkan lama joogin nasiib xumo injury baa ku dhacay juba soo gaadhay uu nasanaya marka insha Allah waxaan rajaynayaa sanadada soo socda inuu orodkiisa dib ugu soo noqdo insha Allah. Bashiir tartanka ku dhawaad 60,000 oo orodyahan ayaa ka qayb galay marka adiga kaalintee ka soo gashay? orodkii maanta waxaan ka galay 6aad walaal 6aad ka galay sababtoo ahayd orodkii Olympiga ka dhacay Japan oo full marathon 42 kilomitir ayaa bil ka hore ahayd marka wali
jirkii qumaati uma nasanin inaan ordaba ma ahayn laakiinse waxaa jira caqabadaas ka jira adduunka orodadii badnaa ee dhici jiray baan jirin marka jaansiyaashii badnaa eenu heli jirnaana helin markaasaa daraaddeed orodkan markaan maqlay inuu dhacayo oo dowladda ingiriiska ogolaatay saas orod dadka u badnaayeenba oo qof kasta isagoo qofkii diyaara kii aan diyaar ahayn kulli waa las qore waa laga soo qayb galay marka shaqo aad badan ma gelin ma odhan karaa olombiga kabacdi waa iska daalanaa saasaan lixaad usoo galay markaan fiirino inta uu soo jiray tartankan muddo intee la-eg ayaa lasoo qabanayay orodkan sanad kasta hal mar baa la qabtaa sanadkii hadda lasoo dhaafay 2020 unbuuna dhicin caqabadooyinka adduunka ku jiray daraaddii coronaviruska dhibaatooyinkiisii unbuuna dhicin orodkan wuxuu ahaa edishinkii 40 jeer baa la qabtay maanta edishinkii afartanaad buu ahaa marka maanta waxay ahayd sanad guuridii afartanaad bay u ahayd marka waa orodka adduunka ugu weynee half marathonka la yidhaahdo waaye kaasi waxa uu ahaa Bashiir Cabdi oo ah orodyahan Soomaaliyeed oo ka qayb galay tartanka nusmartonka ee shalay lagu soo gabagabeeyay dalka Britain. Isla dalka Britain hal kulan oo ka tirsan horyaalka Premier League ayaa la ciyaaray kaasoo u dhaxeeyay kooxaha Leeds United iyo Liverpool. Kulankan ayaana waxaa 3 gool iyo waxba ku badisay kooxda Liverpool. dalka Talyaanigana kooxda Roma ayaa 2-1 uga badisay kooxda Sassuolo. Kulankan oo ahaa mid adag ayaa kooxda Roma goolka guusha waxay dhaliyeen daqiiqadii 19aad. AC Milan waxa ay 2-0 uga badisay kooxda Lazio. Udinese waxa ay 1-0 uga badisay kooxda Spezia. Genoa waxa ay 3-2 uga badisay kooxda Cagliari. Kooxda horyaalka difaacanaysa Inter Milan waxa ay barbaro 2-2 isla dhaaf waayeen kooxda kale ee Sampdoria. dalka Spain kulamo ka tirsan horyaalka La Liga ayaa xalay la ciyaaray. Kooxda Atletico Madrid ayaa 2-1 uga badisay kooxda Espanyol. Valencia waxa ay 4-1 ku garaacday Osasuna. Real Sociedad waxa ay 2-0 ku garaacday kooxda Betis, halka kooxda Real Madrid ay kusoo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af Soomaaliga VOA oo idinka imanaysa Washington DC. waa fiidnimo Isniin ah bisha Sebtembar ee sanadka